ارقصوا يا ولاد وافرحوا يا ولاد، علقوا زينة رمضان عالباب. طول الليل قاعدين لسحورك ونوينا صيام شهر الخيرات، طول السنة نستنى قدومك ليلة الرؤيا والنفحات. السلام عليكم walaalyaal رمضان كريم وولاasheen qadar kiif oo idin Ramadan wanaagsan. maanta waxaan idin hayaa cabitaan yar oo fudud oo caafimaad ahaan u fiican. cabitaankaas wuxuu ka kooban yahay 2 xabo liin macaan, 2 xabo moos ah, sokor yar, sokorta waliba intaan waxba ka sii kala celinaa koob weelka ku jirto, iyo 2 bakeeri oo biyo ah. marka intaas isku soo diyaarsanaa insha Allah waa idin tusaadana qaabka u soo shiidayo isla socod wanaagsan. waatan liinteen waan soo goostay, miraha xoogaa aan ka saaray intaan karo. intan 2 xabo mooska aad ugu yar sidaan dareemaa waa moos yar oo ahaa iyo sokorta yareed. makiinada isku soo diyaarinaya insha Allah isla socon. sokorta yareed waa tahay xoogaan ka soo dhigay sokorta. qofka hadii uu inuu rabo miisaan badan inuu san raacin oo gym sameynayo kale sokortu iska dhaafi kara maxaa yeelay mooska asaa macaan dabiici leh. wuxuu u isticmaalaa liinta iyo mooska, yoogadu ku darsanaa dooro. yoogadkan ma sha Allah ku yahay waa ka labadeen bakeeri sokorta ah. hadda isku soo shiidanayna makiinad dhawaaqeeda idinka xiraa insha Allah. markii ay ii shiidanto isku soo noqonaynaa Ilaahay idmo. ugu dambeyn cabitaankeena waa kana oo noo soo diyaarsamay. cabitaan adagoo ma sha Allah oo noqday caafimaadku cab ila tijaabiyana. markaas cabitaankeena quruxdaas ku soo baxay uu adeeg yahay wax adeeg iyo wax kuskus la miiraa iyo waxa soo dhan ma lahan. tijaabi wallahi waa u boogi doontaa insha Allah.